أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم kuwaan qaata Allah naga dhigo ayadaha quraanka waa iska bilaabaneynaa mar labaad mar saddexaadna waan idin mahad celinaynaa ka soo qaybgalkiina munaasabadan maanta aan isugu yeernay waalidiinta ubadka dhalinyarada iyo dadka waxgalka ee magaalada si aan u tusno ama aan isu tusino inaan annagu midoobi karno inaan wax wada qabsan karno inaan ubadkeena isu keeni karno inaan tashan karno inaan la tartami karno qoomiyadaha kale si aan isu tusno dhexdeena bay muhiimad ahayd waana dhiirigelin aan u sameynayno dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee degan Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg isbarashada caruurta iyo isdhexgalka caruurteena Soomaaliyeed waa muhiim targetka kaas uu ahaa sida ka wada warqabtaan magaalada waxa ku nool family badan waxa ku nool caruur badan caruurta Soomaaliyeed isma taqaano saala socotaan caruurta Soomaaliyeed waxay dhigtaan iskuulo waxay aadan subaxii qaarkood 6 subaxnimo kuwa waxay aadan 8 subaxnimo waxay ka soo laabtaan fiidkii ama galabkii inta waxay ku dhex jiraan dad cadaan ah dadkaasi ay ku dhex jiraan waxay leeyihiin ama ay wataan dhaqamo kala duwan dhaqamadaas kala duwan ay dadka xambaarsan yihiin waa message ama fariintaasi hadii loo dhiibo ubadkeeni oo wadadii saxneed ee dhaqankoodii wada aan ahayn ay qaadaan mas'uuliyadaas waxa iska leh dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta sababtoo ah ubadka waxa loo baahan yahay in loo sameeyo meelihii lagu tarbiyan lahaa oo tarbiyada islaamka aan ku bari lahayn meelihii dhaqankooda aan ku bari lahayn meelihii iyagu ay ku ciyaari lahaayeen inta oo dhan mas'uuliyadda waxay saaran tahay waalidiinta iyo dhalinyarada iyo qof walba oo raba qof walba dhalinyarada magaalada jooga wuxuu socdaa inuu aabba noqdo ama ay hooyo noqoto marka sidaa darteed qof walba mas'uuliyadda ka saaran tahay maanta wadada aan ku soconno hadaanan wax ka bedelin reer Hamburg oo aan midnimo iyo maaragtay aan muujin in dhaxdeena aan wada shaqeyno oo mustaqbalkeena aan ka fikirno sida qoomiyadaha kale ay u xisaabtamayaan aanan u xisaabtamin oo aanan oran wiilkayga mustaqbalka kulay halkan waaba jooga gooran ka laaban doono oo wadankii nabad inuu noqon doono Ilaahay baa garanay maxaa u xal ah xaguu wajihi doona mustaqbalka ilmaha anu halka aan ku dhalay xagee wajihi doonaan ma Jarmal bay noqon doonaan ma Afrikaan Soomaali bay noqon doonaan xagee ilmahaasi ku wajahan yihiin su'aashaas waa in la isweydiiyaa ilmahayga mustaqbalka kaalin noocee buu ka ciyaari karaa horumarka wadankan ka qayb qaadashada horumarka waxbarashada isdhexgalka iyo kaalmaha firfircoon ee bulshada dhexdeeda ubadkayga kaalin noocee bay ka ciyaari karaan marka su'aalaha nooca la isweydiiyo waxa imaanaya in ubadkii lagu dadaalo hadii aad tiraahdo anigu aabban ahay ama hooyan ahay aniga iyo qoyskayga waa iskoobayna ma dhaxgalayno bulshada kale oo waxa weey annaga mustaqbalkeen dhisanayna Soomaalidu way dhib badan tahay hadaad tiraahdo oo Soomaalida gees uga baxdo oo adigu aas fuquuqdo waliga horumar saa kuma gaaraysid laakiin horumar waxa ku gaaraysaa midnimo iyo wadajir dhexdeena ah in la isu keeno caruuraheena Soomaaliyeed in iyagu ay wax iska bartaan in iyagu kooda wanaagsan kooda xun uu ku daydo in iyagu ay isgacan qabtaan ay ciyaaraan ay kaftamaan ay sheekaystaan annaguna aan niyad u dhisno oo waxa weey sheekooyinkeena dhaqanka iyo barnaamijyada dhaqanka ah iyo wax kasta oo garaadkooda kor aan ugu qaadayno haday noqon lahayd sportigi ama barnaamijyada kale aan u sameeyno inaan tartamo u qabanno inaan quraankii barno axaadiistii aan barno dhaqankeena wanaagsan aan barno taa waa mas'uuliyad guud annaga ayna saaran tahay marka anoo guntii gabagabadii u soo dhaadhacaya muhiimadda ay leedahay midnimada bulshada waxaan leeyahay isku duubni baan idinku baaqayaa reer Hamburg annaga barnaamijkan maanta waa soo qaban qaabinay intaanoo dad waa isku keennay muhiimadeena wax kala ma ahan cid lacag nagu siisa ma lahan cidna taageerti ma lahan annaga istaageernay annaga dhaxdeena go'aasanay inaan sameeyno gudiga jaaliyadda ku meel gaarka ahaan waxa weey jaaliyad baan noo diiwaan gashan oo dawladda aan u gudbinay oo magaca Soomaali weyn aan ku gudbinay Soomaali weyn bay matashaad jaaliyadaasi hadii ay soo baxdana de waxa weey hadda processkii ku jirtaayo wali barnaamijyadii la buuxinay foomkii la buuxinay codsigii baa socda hadii ay soo gabagabowdo jaaliyadaas ogolaanshaha aan helno waxaan rajaynaynaa inaan heli doono goobo waaweyn oo annaga aan leenahay oo aan ku kulanno oo ugu horeeyo masaajid ay leedahay Soomaalida Hamburg saan ognahay qoomiyada kala duwan magaalada nagu nool
qoomiyadahaas waxay haystaan goobo ay isugu yimaadaan ubadkooda goobo ay isugu keenaan xilliyada farxadaha xilliyada munaasabadaha waddankoodii maaragtay xilliyada munaasabadaha waddankan fasax u yahay waxay leeyihiin masaajid ay iyagu salaadii ku tukadaan ay ku cibaadaystaan annagu waxaasoo dhan waa ka aradannahay waxaan kaliya naqaanaa reer hebel yuu yahay qofka waxa sameynaya waa reer hebel dee reer hebel annagoo reer hebel ah annagaasaana see waxa uu sameeyaa marka nimayo waxaas aan ka gudubno intanaas halkaa fadhida haddii aan u midowno inaan isbeddel samayno waa samayn karnaa waana hoggaamin karnaa kuwa kale marka waxa weeye isku tashiyaa loo baahan yahay bahasha faraha hadda way ka baxday waagii hore bilowgii dadka marka ay imaanayeen Hamburg way is eegan jireen oo waxa la isu eegan jiray waa dadku aad buu u yar yahay laakiin dadka hadda aad u soo batay magaaladan ku nool caruurtii aad u soo badatay kuwa wadankii laga keenay kuwa halka ku dhashay wixii dhan waa soo wada koreen marka caruurtaas waxay u baahan yihiin jiha inaan u sameeyno haddaanu jiha u sameeyn caruurtaasi ogaada waxay galayaan gacan kale dad kale jiha u sameyn doona marka isku tashta waxa weeye ka gudba waxyaabaha tafraaruqa keeni kara midnima loo baahan yahay wixii siyaasad ah wixii isqabsi ah wixii barnaamij kale oo Soomaaliya looga yimid Soomaaliya ha ahaato Soomaaliya ahayd halkan waa Jarmalka waa Yurub marka qaabka qoomiyadaha kale ay u dhaqmayaan ay isugu duuban yihiin waa inaan u dhaqannaa aan u ficiltannaa oo aan la tartannaa qoomiyadaha kale taasaan idinku baaqayaa hadalku waa qaybinayaa ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhawaado aan ku soo dhaweeyo mid kamid ah waalidiinta ahna odayaasha magaalada bismillaahir rahmaanir rahiim horta waydin salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumar dhammaan waydin salaamayaa martida sharafta leh oo ka soo qayb gashayna waan salaamaynaa annagoo ku hadlayna magaca jaaliyadda Soomaaliyeed intaa kadib anugu wax badan uma istaagin waana laygu soo qaaday oo aanu meesha kuma soo tashanay magacan baa hadda layga soo qaaday horta maxay ideen raalliha layga hado haddii wax khalad iga yimaadaan intaa kadib horta ummad waliba meeshan waxa ummadahan isugu yimaadeen waxa weeye in wax la qabsado oo danta Soomaaliyeed laga wada shaqeeyo dabadeedna sidii ay ahaan jirtay dhaqamadu Soomaalidu waxay hoggaamin jirtay berigii hore qoomiyado fara badan wadamo fara badan ayaa la hoggaamin jiray oo Soomaaliya madaxdeedu ay martigelin jireen dabadeedna maxay ahayd halkaa waxa ka soo bixi jiray fikrado badan oo maxay ahayd Soomaaliya lagu ammaanayo haddii aad joogtaan marka wadankan magaaladan Hamburg Jarmalku uu nagu martigeliyay waxaa loo baahan yahay inaanu maskaxdayadii aanu dib ugu noqonno midnimadii Soomaaliyeed dib loogu noqdo sidii awlaadda iyo ubadka la dhalay wax loogu qaban lahaa dib loogu noqdo la ismasaabaxo qofna aanu qof eedayn intaa kadib waxaan filayaa in lagu midoobi doono fadhigan ama fadhiyada xiga intaan keliyana aanay noqon doonin marka anugu khudbad dheer umaan istaagin waad ku mahadsantihiin allah ya cisag maamulkana waxaan leeyahay maamulku waxyaabo badan baa imaanaya oo haddii la sameeyo barnaamij waliba wuxuu leeyahay caqabado hore leh oo cusub oo ka hor imaanaya marka in dulqaad ay sameeyaan qolada maamulka wadaa ayaguna ay ka fakaraan siday ummad isugu keeni lahaayeen qof carooday ciyaarta ma badiyo waa laga badiyaa marka waxaan leenahay yaan maamulku caroone ciyaarta si aan looga badin oo ayagu maxay goolasha u dhaliyaan carada inta meel dhigaan dadkana isu soo jiidaan u mideeyaan Soomaalida si daacadnimo iyo hufnaan laha ugu shaqeeyaan intaasaan ku soo gabagabaynayaa waadna mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن والاه أما بعد جاليد الصومالية horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynana wax qabadka fiican ay sameeyeen talagalyahaana waxa weeye anigu hadal badan uma soo galin laakiin laba kelmadood baan oranaya war Soomaaliya anoo salaamaya rag iyo dumarba muhiimaddu waxay tahay in aad ka fakartaan jiilka cusub ee soo kacaya oo ubadkiina how to save your children sida u save karayn kartaan ubadkiina waxaad ku save karayn kartaan idinkoo organization yeesha kala dambayn iyo nidaam iyo walaaltinimo iyo soo dhawaanshada wax ku wada intaa waxay ka badan
waxaad ku noqon kartaan ma jirto Soomaalidu waxay ku maamaadaa farifool ma dhaqdo marka isku duubni muujiya ma garanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan kulliba wada shaqayn muujiya isu tanaasul muujiya haddii fikirka lagu kala duwanaado xataa isu tanaasula oo fikirka meel midaysan uga soo wada jeesta waana wax Soomaali ay wada leedahay organization Soomaaliyeed weeye guulaystaan idin leeyahay horumarna muujiya neeshino kale oo ajaanib inaan nool Arab bayna nool Turki bayna nool Jarmal bayna nool adduunka cid waliba way ogaatay isku duubni mooyaane wax kale wax lagu qabtaa ma jirto aad iyo aadna wadin salaam ya salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh Maalid fadal Khalid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وأصلي وأسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لنا وهدانا إلى صراط مستقيم. يعني أنا من جمهورية مصر العربية ويعني تشرفت اليوم بأنني أكون وسط الجالية الصومالية وهذا شرف كبير لي لأنني تمنيت كثيرا أن أتقابل مع الشعب الصومالي يعني كثيرا ما أسمع على الصومال وكنت أحب الشعب الصومالي يعني نتيجة أنه شعب أسمع أنه شعب طيب شعب ودود شعب يحب الخير شعب يعني قلبه يعني مليء بالإيمان سبحانه وتعالى ربنا أنزل عليه الإيمان والتقوى وهو شعب مسلم بطبيعة الحال ومسالم ومحب للإنسانية. waxaan maqlay shacabka Soomaalidu inuu shacab aad wanaagsan yahay shacab dadnimo Community hier in Hamburg und erstmal freuen wir uns, dass ihr uns eingeladen habt und wir finden solche Events super toll und wir freuen uns, dass ihr hier seid, wir mit euch unseren Wohnraum teilen können und wir finden es sehr wichtig, dass solche Events durchgeführt werden und dass sich auch die Leute kennenlernen und vernetzen und integrieren. Und wir unterstützen euch, wo wir können. Liz, die da hinten sitzt mit der Cappy, sie hat die Flyer gemacht. Hier, die hier. Und ja, wir unterstützen euch und freuen uns, euch wiederzusehen und wieder mit euch hier einen Abend zu verbringen. Dankeschön. Dankeschön Tseva. muhiimadda guud waxa uu sheegay inaa wada fahanteen aan jeclahay waxa weeye waa arday Jarmalka gudihiisa oo dalkan u dhashay oo magaalada Hamburg laakiin meel gobol kala duwan ay ka yimaadeen sida Stuttgart, Frankfurt iyo Bremen marka waa gobolada kala duwan 16 gobol ee Jarmalka marka mar walba waxa weeye waxay ka mid yihiin dadka taageera jaaliyadda inay hore u socoto in anagu aan isku duubnaano waa runtood xitaa waxay naga caawiyeen samaynta ama design-ka bahashan sticker-kan marka la yiraahdo caadiyan magaaladan design-kan ka soo sameynaya ama qof shop dukaan haystaan ka soo sameynaya wuxuu kugu sameynaya lacag aad u badan laakiin iyaga si volunteer ama toddobaadnimo noogu sameeyo ku maasan yihiin marka taas intaasan kaga soo gudbayaa kelmadda xigta waxaan siinayaa insha Allah amiin okay waa maasantiin isku maateen isku imaantaas ku wada fiicantiin waxaana fiicnaan maalin walba ma arsan in weekii hal mar ama bisha mar la isku yimaado marka aanu ma aqaansid wax loo qaban qaabiyo qof walba ma wax walba uu yaqaan ma laakiin waxa fiican wixii macnaha ay sameynayso jaaliyada ama qof haday wax tarayso ama dhamaan wax tarayso in يعني اللي سوى ذا قرب قبته وكساسا جعل ما دام ما ترساسا قيم وأنا مع سنتين مدة كلا يعني أن فهنوا يعني وجدة الجالية الله سمعنا أنت بدن قفكم مركو حنون كتريمة أمبو أجادا يعني إنه عفمات قيمة ليه هاي مركا ما فهم سنين بانو ملاينا يا إلا هاد قيمة هاي الجالية دولا هاي إن هنتاجرنا محل هاي دليرت
hawsha wada yaana la macaaradin yaana de bilaabin hawshaan uga nimidna Soomaaliya ee ahayd waa ayo qofka hawsha wada yaani imiso qof cidaas may ku jirtaa cidaas may ka maqan tahay yaani haddaan taa ku fikirno waxa leeyahay waxay gaadhaysaa Soomaaliya ma jirto 2013 ilaa hadda waxa la leeyahay jaaliyad Soomaaliyeed baa la sameeyaa jaaliyad Soomaaliyeed dhalinyar baa isku imanaysa dumar baa isku imanaya haddana waxa leeyahay wax hagaagaya ma jirto marka hadda tan mustaqbalka ugu dhow iyo ugu rajada badan leh waa tan hadda aan meesha u fadhino waxaan inaga codsanayaa inaad si yaani serious oo maxaa la yiraahdaa xaqiiqa aad u taageertaan waxaan oranayaa maamulka maxaa la yiraahdaa kulay toddoba qof ugu sareeya maamulka yaani waa bilow waxa weyn ku meel gaad yaani dad uun baa bilaaba marka koobaad marka wax la bilaabayo haddaan ilaahay Soomaaliya oo dhan baa bilaabaysa 1500 baa hawl lagu bilaabaya ma suura galayso marka toddobada qof ee maxaa la yiraahdaa wada hawsha waa ku meel gaad markay baashu la aqbalo marka maxaa la yiraahdaa ay istaagto doorasho waa la gali karaa ninkii uu guri ka haya ama gabadhii rabta inay maamulka ka qayb qaadato yaani way ka soo qayb gali kartaa waa la dooranaya